الله عليكم ميل كستو دونيدا كجوجتان ولكن درس حسن محمد بيج كايغا داونيسا درس قصر بيج اوفيشال sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee Dirs Qasar Channel Official maanta muuqaaladeena waxaan ku soo qaadanaynaa 3 muuqaal oo aad u khalis ah ama aad u khatar badan oo ay duubtay CC kamaradu si aan muuqaaladan oo kale u soo badiyo fadlan ugu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kuugu soo dhacaan muuqaaladan soo geliyo mahadsanid muuqaalkeena koobaad waxuu ka bilaabmayaa sidatan waa dukaan laga tukaamaysto oo wax kastaaba yaalin sida qasaaladaha TV-ga iyo wax kaste oo meesha looga baahan yahay ninkan wuxuu isleeyahay bal muraayadan xaggeega hoose eeg markuu is yiraahdo bal madaxa la soo kac ayaa waxa uu taabanayaa dhalada kuwa kalena gacanta ayuu ku dhufanayaa kuwa ka dambeeya meeshaas ay dhalooyinkiiga dhanna ku daadanayaan una yaabaya oo madaxa ayuu qabsanayaa xataa ninka security-ga ee meesha isaguna joogay madaxa ayuu qabsanayaa muuqaalkeena labaad wuxuu ku bilaabmayaa sidatan ninkani waxa uu doonayaa alaab meesha ku jirta in uu soo xado ama mooto meesha ayuu ugu gabanayaa oo wuxuu isleeyahay bal yara sug inta uu yoolku kala dhacayo ama shanqadhu ay kala yaraanayso kaasoo meeshan u fadhiistay inuu tuuganimo ku sameeyo reer iska buraadla oo guryahooga iskaga jira mootadoodana uu soo qaato runtii aayar ayuu iska furayaa albaabka maadaama albaabku uu ku xidhan yahay quful wuxuuna isku dayayaa inuu bal qufulka dhaafo marka uu gudaha u soo galo meesha uu aayar iska qabta albaabkaas oo aad u adag ayuu mootadii gacanta ula tagayaa si uu bal soo qaato mootadan marka uu mootadii soo qaato uu is yiraahdana dibadda ula bax nasiib darro waxa qabanaya albaabka meesha ku yaalay kaasoo uu isleeyahay bal albaabkan iska maaree inta aan lagu soo bixin nin kale isaguna laamida maraya uu ku soo beeray oo meesha ayuu mootada istaajistay oo ninkan ayuu daawanaya nasiib wanaag ninkii mootada iska lahaa ayaa ku soo ordaya isaguna wuxuu isleeyahay bal la dhaaf inta uuna ka soo gaadhin kii oo majarfad la ordaya ayaa yimid waa nin xoolihiisa dhayl lagu ma qaato majarfad buu soo qaatay wanku calool adagka sida ayuu xoolihiisii kaga reebtay haddana waxa uu doonayaa in uu fiiriyo ninkii in uu meelahan ugu gabanayo iyo in uu tuug la qabtay miyaa meesha ku joogsanaya muuqaalkeena saddexaad waxuu ku bilaabmayaa sidan meeshan lo ayaa soo maraysa kadibna nin iska buraadla oo meesha taagan unba iska sanifaysa kadibna way ku jeedsanaysaa oo geeska ayay ku dhufanaysaa ilaa ay dhulka ugu tuurto aayar ayayna iskaga tegaysaa ninka wuu yaabay oo wuxuu isiri balaayadan dhulka sidaa kuugu dhufatay maxay ah taasoo hadduu qof yahay ayna kala bixin oo dagaal isku qaadi lahayn laakiin waxay ku noqotay wax lama filaan ah oo lo unbayba ku noqotay saddexdii muuqaal intaa ayaanu ku soo afmeeri doonaa fadlan haddii muuqaaladani ku xiiso geliyeen sheer dheh oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid